والعدالة قفك عن عدالة سمين آخرية الدنيا والله محيا أنا أق لو يكون اللي يطوانكي وهي كدعي عدالة هذا يسوى الله أبتان يوم القيامة كدعي الصومالية maalin wanaagsan daawadayaal waa galka miidiya hogaamiyaha mayalka adag hadalka aan ka gaban seeftiisuna ay bannaanka taallo iyo qayladiisa oo cabsi gelisa kuwa ka soo horjeeda waa Axmed Ducaale Geelle Xaaf yaa diidan inuu Xaaf ka mid noqdo aqalka sare ma dhabbaa in Xaaf uu ciidan iyo gaadiid dagaal u diyaarsaday maxay kala socotaa villa Soomaaliya ololaha ka socda Dhuusamareeb maxaa ka jira in qoorqoor cadaadis badan uu dul saaran yahay oo dhinacyo badan kaga imaanaya warbixinteenna oo maanta xasaasi ah fadlan muuqaalkan like saar oo sheer garay lana wadaag asxaabtaada hadda sheer dheh mahadsanidin waa tahay haddii aan ku bilaabo Xaaf oo hadda u durbaan tumanaya sidii uu uga mid noqon lahaa xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka imaanaya Galmudug dagaalkii ugu cuslaa ayaa ka dhex qarxay qoorqoor iyo Xaaf maadaama Xaaf uu doonayo inuu xoog kaga mid noqdo xubnaha aqalka sare ha yeeshee waxaa arrintaasi diidan madaxweyne qoorqoor madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhaqaalo badan ku bixinaysa inuusan marnaba Xaaf ka mid noqon sanatarada aqalka sare iyadoona cadaadis xooggan uu ku socdo qoorqoor warbixinteenna maanta waxaan ku lafaguri doonaa hardanka adag ee ka socda Dhuusamareeb kaas oo u dhaxeeya madaxweynaha Galmudug iyo Xaaf wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in kulamo siyaasadeed ay ka socdaan magaaladaasi kaas oo la isku bari la'yahay cidda ka mid noqonaysa liiska musharaxiinta ee la filayo inuu shaaciyo Mr. Qoorqoor Cabdi Qaybdiid ayaa la filayaa in liiska lagu soo daro waxaana wararka ay sheegayaan in Qoorqoor uusan doonayn in Cabdi Qaybdiid lala tartamo Xaaf ayaa horay uga digay dagaal iyo colaad haddii Qoorqoor uusan u cadaalad falin dhammaan dadka xilka raadinaya waxaana go'aanka Qoorqoor uu horseedi karaa xiisad dagaal oo dhiig ku daata xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo xalay ku shiray Dhuusamareeb ayaa la filayaa in ay soo saaraan war saxaafadeed ay ku diidayaan amarka madaxweynaha Galmudug kuna codeeyaan in musharax kasta oo reer Galmudug ahi imaan karo ololo samayn karo lana soo dhaweyn karo Galmudug ayaa u muuqato inay hayso wadadii koonfur galbeed mid la mid ah madaxweynaha koonfur galbeed ayaa sidan oo kal hore u mamnuucay soo dhaweynta musharaxiinta baarlamaanka ee tegaya Baydhabo wax kasto waa ay isbedeli karaan ha yeeshee weli faafinta rasmiga ee liiska musharaxiinta lama soo gelin oo dib ayaa looga reebi karaa Xaaf in liiska laga soo saaro balse waxaa helnay inuu ku jiro musharaxiinta tartanka loo fasaxay Dhuusamareeb ayaa ah magaalada ugu adag ee aqalka sare doorashada ka dhacayso maadaama kuraasta qaar siyaasiyiinta saameyn ku lahi ay ku bartamayaan Xaaf iyo Cabdi Qaybdiid ayaa kursiga ku loolamaya halka Dhage iyo Dhagdheer iyo Abshir Buqaari iyaguna ay doonayaan in dib u doorasho ay helaan wararka ayaa sheegaya in Buqaari la doonayo in liiska musharaxiinta laga reebo balse Qoorqoor oo ay isku hayb yihiin ayaa doonayo in uu tartanka Abshir Buqaari u fasaxo saacadaha soo socda ayaa si rasmi ah looga dhex arki doonaa liiska musharaxiinta tartamaysa waxaana wararka ay sheegayaan in nabad iyo nolol ay ku dagaalami doonto xildhibaanada ka imaanaya Galmudug haddaba daawade maxay kula tahay fikirkaaga in xilligan hardanka iyo loolanka adag ee arrimaha siyaasadda ee doorashooyinka ka socda Dhuusamareeb ay ku dambayn doonaan fikirkaaga waa inoo muhiim qaybta hoose ee commentiga inagula wadaag
annaga oo mar walba ka fogaanayna wax kasta oo dib u dhigi kara horumarka dalkeenna waana rajaynaynaa in aad aragtidaasi nala qaadataan mahadsanidin